Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay dil argagax leh uu ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, kaas oo loo geystay macallin dugsi Quraan iyo xaaskiisa sida ay noo sheegeen ilo wareedyo deegaanka ah. Allah ha u naxariistay macallinkii iyo xaaskiisa oo ku sugnaa gurigooda ayaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo Bulucle oo hoos taga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaad hubeysan ay toogashada geysteen isla markaana ay dileen labadan marxuun xilli ay ku sugnaayeen hoygooda, waxaana kadib ay ka baxsadeen goobta ay dilka ka geysteen. Dilkan foosha xun ayaa lala xiriirinayaa aana qabiil oo ka taagan deegaan dhaca bariga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, kuwaas oo isku geysanayaan beelaha wadadega halkaasi. Dhacdadan ayaa sidoo kale argagax ku reebtay dadka deegaanka, waxaana si aad ah looga hadal hayaa baraha bulshada iyada oo dadweynuhu ay tilmaameen in ay tahay wax laga xumaado tallaabadan lagu dilay macallinka iyo xaaskiisa. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray halka ay mashaqadu ka dhacday, waxaana haatan ay howlgallo ay ku baadigoobayaan maleeshiyaadka dhibaatada geystay ay ka bilaabeen aagga degmada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Falkan argagaxa leh ayaa kusoo beegmaya iyadoo haatan Dhuusamareeb ay taallo gogol nabadeed oo ay dhigtay maamulka Galmudug, taas oo lagu heshiisiinayo beelo dhowaan ku dagaalamay waqooyiga gobolka Galgaduud, kuwaas oo ay iska dileen in ka badan 50 qof. Gobolada dhexe ee dalka ayaa waxaa ku badanaya colaad beeleedyada oo horey dhacdo tan la mid ah ayaa uga dhacday isla markaana gobolka Galgaduud kadib markii lagu dilay macallin dugsi Quraan iyo dhakhtar walaalo ahaa, inkastoo la soo qabtay raggii ka dambeeyay dilkaas oo la maxkamadeeyay kadibna dil toogasho ay ku fulisay maxkamadda gobolka Galgaduud.